وبركاته قاعد صرت الملك استأذنك كجوتان وإذا سلام يا دمانتي كسر دواد يوتيوب channel كسرت قرحة يا عافيمتك ولا شيء زين ومانتنا إن شاء الله وحب برنامج كان قصين دون أما كسابسين هاي كريم ريفيو أما وضحين كسابسين كريم اللي قصوا عصدي كريم كاسو لما عبحي برونس تون كريم إن شاء الله سوي كيسنا كان قصوا عتاج كريم دون بإذن الله كريم هدي أدحيسانس أما دنينس إن وضحين كهشت أما حق ku qanci doonta kareemkaas isaga ah ku saabsan fadlan daawo fiidiyowga dhameystiran sidoo kalena haddii aad noo cusubtahay subscribe-ka qac ku sii haddii aad hore noola joogtaan dhammaantiin soo dhawaada aan leeyahay welcome janaalka waa janaalkiina sii share gareeya la wadaaga asxaabtiin ama gabdhaha kale walaaliin si ayagana uga faa'iidaan waa mahadsantihiin ila daawada fiidiyowga dhameystiran marka ugu horeysa haddii aan ku bilowno kareenkan waa maxay kareenkan waxay sheegeen ama ku qoran xogta meesha ku qoran waxa waaye kareenka inuu yahay kareen oo moisturizing ah oo macnaha loogu talagalay jirka inuu qooyo isla mar ahaantaasna jirka soft ka dhigayo oo jilcinaya midabkana furayo isla mar ahaantaasna madowga iyo waxaas iyo haarahana ka baabiinayo midna midabku wuxuu ka dhigayaa midab qurux badan oo dhalaalayo oo isla mar ahaantaasna xoogaa furan midab xoogaa furan taas ayay warbixinta u horeysa ay kusoo bandhigeen sida ku qoran xogta kareemka waa taas marka intaa laga soo tagana kareemkan muxuu ka samaysan yahay kareemkan wuxuu ka samaysan yahay waxyaabo badan ay ka mid tahay number 1 kuwa ugu waaweyn markaan soo qaadano waxa waaye coca butter wax loo yaqaano ayuu ka samaysan yahay wuxuu kaloo sidoo kale ka samaysan yahay glycerin waxa la dhaho ama glycerin sida Soomaali u taqaano oo ma taqaana glycerinkan fadhiyo oo Soomaalidu aad u isticmaasho noocaas isagoo liquid ah oo qoyanaya jirta adiga kaas ay ku dareen oo runtii wuxuu isagu ku fiican jirka uu qooyaa mugta aad u qooyaa glycerinka waxa kale oo ku jirta dhahan citric acid wax la dhaho oo iyadana insha Allah janaalkayga aan maalin uga hadli doono faa'iidada ay u leedahay maqaarka waxa kale oo ku jirta dhahan malabka honey extracts يعني ملب ayaa ku jirta dhahan waana runtii waxyaabaha ay sheegaan waxyaabo dabiici ah oo runtii maqaarka qooya wadaas way u dhahan kareenka waa kareen maqaarka qooya inta markii laga soo tago faa'iidooyinka macnaha waxyaabaha ay u ka samaysan yahay oo main ingredients-ka waxa ugu waaweyn u ka samaysan yahay kareenkan ama laga sameeyay waa intaas waxyaabo kalena way ku qorqornaayeen maadooyin kale meesha ku qorqorna laakiin inta waa inta ugu muhiimsan marka inta laga soo tago maqaar noocay ah ay kareenkan maxaa la jiray oo ku fiican yahay maqaarka loogu talagalay maqaarka saliidda laha loogu talagalay maqaarka qoyan oo qallan aamin mise maqaarka maxaa la jiray isku jirka ah iyo wixii lamid ah mise kan normalka kee loogu talagalay maqaar noocay ayaa loogu talagalay waxay sheegeen meesha ku qoran in loogu talagalay maqaar nooc doona ha noqdee in loogu talagalay ay sheegeen inta markii laga soo tago kareemkan wax kiimika ah ma ku jirta xogta ku jirta ku qoran meesha waxa ku qoran inaysan ku jirin wax kiimika ah waxaana ku qoran inay tahay hydroquinone free ama no hydroquinone marar badan waa idinka sheegay janaalkayga waan ka dharagteen waxay ka mid tahay sunyaasha sun waay qatar ah oo kiimika ah oo jirkaagana damage gaarsiinaysa haddii muddo la soo isticmaalo ama absolutely aan bal ogolayn mamnuuc ka ah in la isticmaalo ama lagu daro waxyaabaha cosmetics-ka la isku qurxiyo lagu daro lama ogola adduunka kareemada ay ku jirto hydroquinone waa laga mamnuuca sida hadda dayaanada oo kale waxaan maqlay dayaana kareemka la dhaho waxaan maqlay in ay ku jirto suntaas ama kiimikaas sida daraadda adduunka meelo badan ayaa laga mamnuucay oo laga isticmaalo marka kiimikaas hydroquinone waa la isticmaalaa oo yacni waxaa loo isticmaalaa kaliya xaalad skinkaaga oo markaas ku soo korodhay oo dhakhtarna uu ku soo qoro waa inuu dhakhtar ku soo qoraa waxyaabo loogu talagalay mise xanuuno maqaarka ku dhaco loogu talagalay ayaa loo soo qoraa muddo yar oo cayiman oo kooban la isticmaalaa ma aha wax kareemada dhan ama waxay jirka waxyaabaha la isku qurxiyo dhan lagu dari karo maxaa yeelay waa khatar waana sun waana dhibaato ku keeni kartaa jirkaaga beerkaaga kelyahaaga iyo haddii muddo la isticmaalo oo la iska wado dhibaato ama damage ay keenaysa sidaa daraaddeed lama ogolo intaas markii laga soo gudbo marka kareemka waxaa ku qoran inaysan lahayn waxaas oo kiimika aysan lahayn ay tahay kareem oo kiimika aanan lahayn xogtaas waa xogta
ku qoran mataqaanaa warqadda ama informationka saxda ah iyagu ay kasoo kambaniga ay kareen kasoo baxsheen waay laakiin markii loo soo dhadhaco kareenkaanetid xog baaris kale aan ku sameeyey dad isticmaalay oo review kasoo sameeyey oo iyaga personal intay shaqsiyan u isticmaaleen yacni waxay ka arkeen soo bandhigay dadka oo meelaha online shopping ka gadanayo waxyaabihii ay ka dhaheen markii aan isku soo kokooyay aniga Zainab ahaan kareenkan ma isticmaalay anoo iyadana ay ugu dari doono insha Allah aniga shaqsiyan Zainab ahaan kareenkaanetid ma isticmaalin oo yacni uma isticmaalin si joogto ah laakiin mar baa jirtay one time aan isticmaalay markaas waxaan joogay Nairobi meel u dhawaan meesha kale oo ku dhagan oo xuduudan u dhaxaysa Kenya iyo mataqaanaa badaxa maxaa la magaceeda Mandera soo mar aan tagay waxaan soo kareemaan gadanay markaas aan dukaan baa tagay gabar Soomaali joogto markaas kareenkan isaga ah bay gadaysay gabar ila socotaa marka ii amaanto waxay ku tiri wallahi kareenkan Zainab waa kareen fiican ma sha Allah oo jirka qoynayo oo anigana waxaan leeyahay dry skin noqday wallahi baan dhahaa okay way mar naag gabadhii kareenka gas dukaanka waxba isku qasqasiisay muxuu qasqas muxuu sameeyaa way ku tiri lugaha gacmaha ani marka lugaha gacmaha u rabay waji uma rabin markaasaan dhahaa ii samee abaayo marka qasqaska adaa dooranay kan iga reeb kan igu dar dadkii yaqaani meeshaas meelaas jooga markii ugu horeysay for the first time ever aan soo gatay kareenkaas iguna dambeysay markaasa waxaan dhahay okay wixii aan rabay dhan baan dhahay kan igu dar kareemada bleachingka ah sida mataqaanaa biyaha casaysada iyo doornafay iyo waxaas iga dhaafay kareem ani maqaar waxaa qabaa sensitive ah waxyaabahaas dhan way dhibaysa isla markii bug waa bararaya moogta haddaan marsado bleachka badan iyo waxaas marka iga reeb baan dhahay waxyaabihii kale waxoogaa naturalka ahaa ama kareemada iska caadiga ahaa oo whitening wax ku qoqornaayeen baa isku qasqas waa iskugu qasqastay caagad yar iskugu igu soo shubtay waa baxsaday lacag ma aqaan aroon $1 bay ka qaadashay $5 $10 waxbay iga qaadatay waa soo qaatay والله ما شاء الله تبارك كرين كاس برونس ومرك يجوه ريسي عن استعماله أصلاً مرك أبدنا وح أبدنا ماشى وح لو قص أسوقها ومنك مركا مرسنا كرين كاس أسبوع باكل اللوجي جعمه هارت وحين نقطة صاف مدك بو فرم حاجة لوجي جعمه خلال كبرنا وقصة بابين جعمها إلوجها أنا وحكا هاي فير رايك حتى من مدو وكي يشان راي نسترتدا أنت مكان كهذا مركا مرصد ويك مركا وذي ما شاء الله تبارك كرنكا صرت واكهله كدب إن وان جعلا إن قطع لكن جانس كل أمور هيرين ما نحسوس صنبه ماشي وكسر متكدب إن مركا هذا هلا كرنكا أنا بهدس كذا لها because of لغة إجمعها سدوا في عين مركا أنت على قصة حقت أنا يعني شخصي أهم مرة أنا استعمالي عن information كأد كسين كرا إن اللغة يجمعها قاد وفي عند الsoft كنت مقارك قلنا وفي عند أنا وصارك واحد جرت قبل كل أمده ويجن ريفيو كسر يوتيوب كجر حتى واحد شيء كريم كان إن ودتك مقارك قلنا مرة إنه سفي عنه لازم يعني إنه إيه وكسب حسكين كذا إنه إيه قاد وفي عين محايلة كريم كان هو كريم موسترايزين waxa ku jira garan kartay maado macna waxyaabaha uu ka sameeysan yahay ayaaba waxyaabaha loogu talagalay maqaarka qallalan glycerin hada aragto waa aad muhiim u tahay maqaarka qallalan oo waliga hadad kareen garanaysid oo maqaar qallalan aan leedahay waxyaabaha inaan ka fiirsan rabo waxa kamid ah cocoa butterkaas oo kale glycerin oo kale iyo waxyaabahaas aad u fiican malabka oo kale haani hada waa very waa ma sha Allah milkiga oo kale hadii maqaarka uu qallan yahay waa ina waxyaabahaas kareen marka gadanaysid aad waxyaabahaas xoog saartaa soo marka marka maxaa la jiray gabdhihii marka isticmaalo madowga ahaa oo badan kareenkan waqtiga Afrika lagu sameeyaa Afrikan aad looga isticmaala Nairobi iyo dhulkaas iyo Nigeria iyo meelahaas wadamada Afrikada aad looga isticmaala marka waana kareen ka soo baxay wadamada Afrika arano magaca wadan ay ku sheegayaan baa laga soo saaray ma xasuustaa deer laakiin adigu muhiimada waxa waaye kareemkan dadka waxa loogu talagalay oo midabkooda uu yahay madow ama kale xoogaa maarinka dadka loo sameeyo kareenkan waa saas ma dadka hadaa mar midabka furay oo cad yahay kareenkan waxa laga yaabaa inaad ku soo bixin waxa laga yaabaa inuu ku anfacin laakiin hadii midabka madow uu yahay ama aad tahay qof midab maarina leh oo midabka maarinka Soomaalida lagu yaqaan dhaxaadka oo xoogaa madow raaca ah waa ku soo baxaysaa kareenka sida ay sheegeen gabdhaha aad u marsaday oo korkooda dhan mariyay saas ayay sheegeen takala oo la sheegay xogta kale oo la sheegay waxa waaye in kareenkan uu ku fiican yahay lagu qaso mataqaanaa wuxuu leeyahay serum wax la dhaho
serum ayuu leeyahay kareemka markaa soo gadaysa waa arkaysa meelaha kareemada lagu gado serumkiisa saliidiisa uu leeyahay oo dhalo kala gooni ku jirto oo saliid ah qoyan oo jilicsan iyo kareemkana waa kareen adag say sheegeen kareemka waa kareen adag ana waa arkay waa sax kareemka ani markaan arki jiray hadda kahor kareem adag waay oo fadhiyo waay oo ma taqaanaa sidii cocoa butterki oo kaleeto usoo carfaayo oo caraf adag buu leeyahay waa run caraf adag buu leeyahay oo ani laakiin waa jeclahay caraftiisa adhoon oo caraf macaan uu leeyahay qofkaan carafta badan jecleen maabi inuu dhibo laakiin muhiimadda waxa waaye saliidiisa uu leeyahay kareenkana ma kareen adag waa labada markaa isku qastid marka maasha allah maqaarkaaga lugaha iyo gacmaha iyo jirkaaga dhan markaa marsid subag buu ka dhigayaa marka intaa laga soo tago saabuuntiisaa jirta saabuuntiisana waxaan arkaya gabadh aad u ammaanaysa aad oo tiri oo madow ah oo tiri 2 years isticmaalaya 2 sano isticmaalaya tiri haddaa awoodaa saabuuntiisa soo gatay maxaa yeelay tiri midabka aad u nadiifiyo una qurxiya madow haddaa ku leedahay kilkilaha iyo meelaha qaar surka meelaha madoowaad madowga bay iga qaadaa ay dhahday waxay maqaarkii qurux soft ka dhigtay tiri kaal arag ka dhigtay marka saas dhahday anigu baaritaan isla markii u galay saabuunta maxay ka samaysan tahay saabuunta waxay ka samaysan tahay waxyaabaha ay kareen ka samaysan tahay laakiin iyada wax kale oo dheeraad ah ku jira maxaa waxay ka samaysan tahay sida meesha ku qoran malabkaas iyo waxay kale ka samaysan tahay glycerinka ay sheegay sidoo kale waxay ka samaysan tahay cocoa butter waxa iyada marka u dheer apricot seed miraha apricotka waa geed la cuno oo miro ah waaye geedkaas ku jiro maxay ka caawinaysaa apricot seedka waxay ka caawinaysaa in maqaarka marka exfoliate gareyso in maqaarka macnihii ay ka qaado ay dhaqdo ay nadiifiso macnihii dead skin ka qaado ay xoqdo ay nadiif ka dhigto calaasha ma fahmi exfoliation ku samaysaa maqaarka soo marka gabadha waxay tiri aniga saabuunta aad ayaan uga helay marka taasi waa taas oo saabuuntiisa haddaa heli karto isagana soo gado dhaha iga soo codsaday inaan kareenkan review kusoo sameeyo waxaan dhihi lahaa abaayo kareemkaas saabuuntiisa haddaa heli karto soo gado saabuunta marka hore korkaaga kusoo dhaq kadibna maxaa dhihi jira kareenka marso jirkaaga marso gacmaha lugaha meesha korkaaga dhan waa marin kartaa saliidiisa haddaa heli kartidna kareenka saliidiisa isku qas oo haaf iyo haaf isku dar oo korkaaga marso haddii waxa weliba aniga jirka inaan marsataan kugula talin lahaa aniga ilan gacmaha iyo lugaha marsan jiray runtii waana ka helay waana la dhacay tan kale oo aan kuu sheegay waxa waaye kareenka waxa uu soo aragtay waa kareen fadhiya oo xeer camal ah oo dadka maqaarka qalalan aad u saacida marka taas waxay keenaysaa markaa marsatid habeenkii oo kale dhulka isku siisid inay isku xirto jirkaaga maaragtay duduleelada maaragtay isku xirto ee ku fariisto hadhowna hadday doonto ay wasakh ugu noqoto marka saabuunta marka waa laazim marka kareenka maanta marsato caawa marsato beriyo kale maalinta aad u qabaysanaysa saabuunta inaad iskaga rugtid oo aad iska saartid saliidda hore meelaha duleelka galgalay aad iska soo saartid waa very important hadhowna dhag haddana mid kale aan marsatid so marka that's why saabuuntiisana inaad soo gadato aan kugula talin lahaa abaayadeyda iga soo codsatay iyo gabdhaha kale oo insha allah danaynayo taasina waa taas waa fikirka kale oo idinku darsanaayo waxaan kaloo ka codsanayaa gabdhaha kareemka isticmaala gabdhaha haddii jiraan kareenkan isticmaalay oo ka helay ama side effect wax kala kulmay please hoos kusoo qor commentiga warbixintaada waxay noo tahay muhiim si gabdhaha kale oo walaalaheena ay uga faa'iidaan ilaa waa aqoon waa isweydaarsi fikir waa isweydaarsi soo marka waxa meesha ku jira waxa waa aniga waxba idima dheeri laakiin fakirka inaan isku darsano kiina waa ii muhiim keega iyo kiina iyo waxa dhan marka isku darana dee waxaa kasoo baxaaya wax macaan result macaan oo markaasna anaga dhan aan ka wada faa'iidno qof walba fikirkiisa inuu soo dhigtay aad ayay muhiim u tahay soo fadlan haddii videogan aad daawatay oo intaanba aad soo gaartay hala dhaafin inaad commentiga hoos kusoo qortid oo warbixin aad kasoo siisay kareenkaas iyo waxay kula tahay iyo waxa adig kasoo maqashay si gabdhaha kale walaalaha uga faa'iidaystaan la share garee sidoo kale gabdhaha walaalahaaga ah si iyagan uga faa'iidaan oo gurubyada iyo waxaas ku jira meel walba dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaa idinkaga tegi doonaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu